mas-uuliyiin uu ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku sagootiyey garoonka aadan cadde 16 ka mid ah dhibanayaashii ku waxyeeloobay weerarkii shalay ka dhacay ex control afgooye mid ka mid ah qaraxyadii ugu xanuunka badnaa taariikhda kadib soobe iyo kii xargaha iyo saamaha qaraxii shalay ayaa saameyn xoogan waxa uu ku reebay shacabka Soomaaliyeed arday iyo hooyooyin badan ayaana ku waxyeeloobay qaraxaas dowladda Turkiga ayaa soo dirtay diyaarad nooca militariga kaas oo ay saarnaayeen saraakiil caafimaad iyo 4 oo daawooyin ah 18 qof oo loo kamid yihiin meedadka injineerada weerarkan ku waxyeeloobay ee dowladda Turkiga ka qaaday Muqdisho waxaana ay si degdeg ah kaga soo jawaabtay baaqi ka yimid ra'iisul wasaaraha xukuumadda sida uu sheegay safiirka Turkiga ee Muqdisho Mahmed Yilmaz büyüklüğünü göz önüne alarak dün Sayın Başbakan'la Somali Başbakan'la yaptığımız görüşmeden sonra acil olarak Türkiye'den böyle bir hastayı taşımak için uçak talep ettik. kadib markii la arkay baaxada qarax uu leeyahay yaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya wuxuu dowladda Turkiga ka codsaday in waxa way gargaar degdeg ah la soo gaarsiiyo dadka dhaawacmay. Hükümetimiz de hiç vakit kaybetmeksizin birkaç saat içerisinde şu anda havaalanında bulunan uçağı gönderdi. Dowladdeena waxa way iyadoo aan wax waqti luminin ya si degdeg ah waxay soo direen diyaaradda hadda aad aragteen meeshan ka kacday. Şu anda Türkiye'de tedavi görmesi gereken 18 hastayı bindirdik. Birazdan uçak havalanacak. Waxaa la saaray diyaaradda 18 dhaawaca oo Turkiga lagu daaweyn doono. Biz menfur saldırıyı kınıyoruz. Waxaan cambaareynaa dhacdadaas ama weerarkaas oo wuxuushnimada ah. Türkiye, Somali iki kardeş halktır. Bu açıdan çok hızlı bir şekilde cevap vermek bize nasip oldu. Turkiga iyo Soomaaliya waa laba dawladood oo saaxiibo ah. Anagana waxaan ku guuleysanay in si dhaqso ah looga soo jawaabo dalabkaas. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da böyle kritik zamanlarda, zor zamanlarda hep Somalilerin, Somali kardeşlerin yanında olacaktır. Turkiga sidii horeba ay u ahaan jirtay waxay mar walba garab taagnaan doontaa shacabka Soomaaliyeed mar horena way garab taagnayd maantana way garab taagan tahay berina way garab taagnaan doontaa. dhaawacyada laga qaaday Muqdisho ayaa ahaa kuwa aad ay u liidatay xaaladooda caruur ayaana ka mid ahaa kuwa maanta Muqdisho laga qaaday. waa hooyo wadata laba caruur ah mid ka mid ahaa ayaa qaraxa u haleelay labada gabdhood oo ay wadato maamadan midkoodna ma aysan gaarin sanad haddana dhaawac ayay ku noqdeen qaraxa ka dhacay ex control oo aysan mas'uuliyadiisa weli cidi sheegan walow mas'uuliyiinta al-shabaab ku eedeeyeen ehlada dhaawacyada maanta laga qaaday Muqdisho oo qoys ka muujinaya qaraxyada caasimadda ka dhacaya ayaa rajo wanaagsan ka muujiya caafimaadka dhibanaha eelkooda. qaraxii shalay dadkii wuxuu ay dhibaatadu ku gaartay intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah bogsiyo in ka mid ah oo loo qaadayo dalka Turkiga ayaan halkaan diyaarad ka saaraynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu noo caafiyo control shalow ku dhaawacmay dhaawiciisu waa dhaawac culus isha bidixda waa maqan tahay goonka waa jaban yahay meeshan kale waa dilaacsan tahay dhuunta firra uga taagan ulaysa fara badan oo xanuuna ayaa jira ilaahay ha bogsiyo dii ilaahay caafimaad ugu tala galayna ilaahay inuu caafiyo haddii ay jasiisu dhamaastana ilaahay oo maaragta u dhib yareeyaan ilaahay uga barayna dambigiisa dambi waalkiisana u dhaafo. dhaawacyada ku jira isbitaalada Muqdisho ayaa aad u badan marka la eego qasaarihii ka dhashay weerarkii shalay haddana waxaa la qaaday 16 ka mid ah dhaawacyadaas. wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa waxa uu tilmaamay in dhaawacyada fudud lagu daaweynayo gudaha dalka ayna u yimaadeen dhaqaatiir Turki ah. dadkii ku guuriyay shalay dhacdada ka dhacday oo aad u fool xumeed ex control dadkaas waxaan Ilaahay ugu baryaa oo waxaan leenahay meeshu ay ku shahiideen in jannada firdaws Allah ka waraabiyo sidoo kale inta dhaabacday ee ugu horeysay inta maanta la qaadan Ilaahay iyagoo caafimaad qaba waddankooda ku soo celiyay inta hartana hadduu Ilaahay yiraahdo oo waddanku lagu daaweyn doono qaar ka mid ah ayagan waxaan rajaynayaa Ilaahay caafiyo waxaan rabaa halka inaan ka saxo in tiris dhaafsan ay gudoomiyaha uu sheegay 16 safiirkan uu sheegay 18 marka dadka la qaado waa 16 safiirka eragaas qalday waa ka 16 qof meesha ugu dambeeyay dadka la qaaday waxaa kaloo jirto hadduu Ilaahay yiraahdo dhaqaatiir halkan noo yimaadeen Turki ah
qaar diyaaradda ay ku noqdeen qaarna ilaa 10 halkaan ay ku hareen iyo daawooyinkii ayagoo dadka fudud dhaawacyadooda halkan ku daaweyn doono dowladda Soomaaliya mar qaarkood waxaa la doorbidaa in dadka labada qof oo hadda dhaawaciisa fudud dhakhtarka Turkiga oo halkaas joogin meesha noogu yimid ay joogi doonaan daawooyinkuna ay wataan sidoo kale haddii Ilaahay raali Britain waxaa imaan doona dowladda aan walaalaanahay ee Qatar ayagana Ilaahay duurahiro diyaarad soo diri doonta dadka kala dhaawaca haray oo ayagana darna insha Allah beriyaan diri doona biidna Kareem balse beri waxaa iman doonto diyaarad ka imaanaysa dalka Qatar kuwaas oo dhaawacyada kala qaadaysa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa waxa uu tilmaamay in mas'uuliyiinta dawladda aysan wali joojin gurmadka waxaana uu mahadceliyay dawladda Turkiga oo si degdeg ah jawaab ugu bixisay baaqa xukuumadda subaxdii waxa ka dhacay ex control sida aad la socotaan qarax weyn oo ay ku baaba'een dad badan oo Soomaaliyeed muwaadiniin ah qaraxaasi marka uu dhacay madaxda dawladda ilaa waqtigan hadda aan xilligaas qaraxu dhacay ilaa waqtiga hadda aan joogno waxa ay ku jireen gurmad loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay waxa noo suura galay dadaal badan kadib 16 ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay qaraxaas in loo qaado dalka Turkiga oo aan walaalaanahay waxa ila taagan halkan wasiirka amniga qaranka safiirka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya wasiirka gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka iyo dhakhtarka taliyaha booliska Soomaaliyeed iyo dhakhtarka oo qaabishan dawladda Turkiga ee badbaadinta bukaanka Soomaaliyeed hadii ay yihiin halkan iyo hadii ay yihiin wixii halka wax looga qabo intaba sidaa darteed waxaan rabay halkaan inaan uga mahadceliyo dawladda Turkiga oo mar walba dadka Soomaaliyeed garab taagan marka ay dhibaato la soo gudboonaato Turkiga ayaa ah dalkii ugu horeeyay soo gurmaday qaraxii shalay kadib waxaana madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu maanta qadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 28 December 2019 aroor sabti ah waxay noqon doontaa maalin kale oo mahadho ku reebta qulubta waalidiin iyo caruur badan oo Soomaaliyeed tiro aad u badan oo arday ayaa qaraxani ku nafweysay shacab ayaa ku sugan cisbitaalada kuwaas oo wali raadinaya qof ehelkooda kamid ah taas oo aaminsan yihiin in weerarkan ay wax ku noqdeen mid kamid ah hooyooyinka aan kula kulmay cisbitaalada waxay ii sheegtay inaysan wali hayn wiilkeeda haddana cisbitaalada ay ka baadigoobayso al-shabaab oo loogu bartay qaraxyada gawaarida ayaanan sheegan mas'uuliyadda weerarkan sidoo kalena dawladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adaha ammaanka wali kama aysan hadlin weerarkan oo Soomaaliya aysan bandhigin baaris sax oo la xiriirta qaraxan Yaxye Maxamuud Maxamed warbaahinta Mustaqbal Muqdisho.